وعمبارينينا تيمي وين هدانا I love you love bell ما love ماشي يال naag la qabo jecelna jirto runta markaas ku sheegno السلام عليكم سواد walaalaha qaaliga youtube channel-ka naga socotaa oo qoyska qarniga walaashin shamis marka la isku soo noqdo wanaagsan walaalihi hor nool joogay iyo walaalaha gadaal looga soo biiray dhamaantiin waxaan leeyahay soo dhawaada maxay idin wada hadda waa u jeedin hadda rooseeta ma jirto indha kuul ma jirto qalin sunni ma jiro waxaan ku yiri caawa kacsanahay waxaan tiktok ku soo arkay laba naag oo la isla qabo haba la isla qabee mid diiweyneed ayaa mid yareed guriga u hagaajinayso cuntada u karinayso intaas kaliya kuma ekay waliba gifti dahab ay u gadaysaa waxay ku dartay oo kaleeto dahabka lacagta ay u gadayso lacag ninka u soo dhiibo maahane waa lacag intaas oo sano soo aruurinayso biilkeeda ka aruurinayso waxyaabaha qaar ee social media ka socda waxyaabaha qaar youtuberada soo gudbiyaan waxba kama jiraan waaye wiil labadaas gabdhood la islama qabo dabcan saa qiyaasayo qof walba aqligiisa yar u kaashan karaa waxaan isleeyahay aniga markaan qiyaasay Soomaalidu waxay iska jecel yihiin wax cusub in la hor keeno markii wax cusub la hor keeno yacni views badan u yeeshaa hadalheen u yeeshaa saameyn fara badan u yeeshaa wiilka youtube-kaas iskale channel-kaas ayaa u fikray sheekadan saa aan qiyaasayo labadan gabdhood la soo heshiiyay dabcan waa asxaaba laga yaabaa qaabkay wax u jilayaan adinka waa arki doontiin laakiin ila ma ahan gabar aqli xumadaas qabto naagadii lagu la guursado waligeed dhici jirtay xataa naaga la isla qabo way dhacday oo ma arkino isku adeego umusha iska bixiyo iscaawiyo asxaab ah way jirtaa laakiin lacag intaas biil ka soo aruurinaysa aadahab naag uu gadaa ma aaminta warkaas aniga iga ma dhaadhicin warkaas ee youtuberada waxaan leeyahay shacabka fidnada ay u soo gudbinaysaa naga daaya oo nimanka ha naga fidnaynina oo reeraha ha isku dirnina ila waxa soo kalnina inta arko run u maleynaya ninka muuqaalkaas daawada ka waran oo awal niyad uga jirtay inuu naag la guursado wuxuu leeyahay kana inaan laba naag isla qabo min weyntii lacagtii ay biilkeeda ka aruurisay miyaradii dahab ugu gadayso waxa soo kala marka waa message qaldan oo laga gudbinayo familada waa cambaareynayna team weyn hadana adinkana qaybta community ku soo qora waxyaabaha qaar oo ma arkino dhaqan ahaanteen aan qurux badnayn in dadka la soo hor fadhiista maaha fiiska sanadkan wax walba ayuu naga galay muuqaaladana waa idin la wadaagi doonaa labada gabdhood iyo wiilka youtube-kan iska leh uu nala wadaagayo wax walba social media way imaadeen wax aan la soo arkin mala tan waa noo dhigneed lacag aan biilkayga ka aruuriyay intaasoo sano 30 garaanay tiri ayuu taxtaa markaa bishii $100 ku gashid waxaan nahay laba qof oo walaalo ah oo isla qabo labadeena waa la soo keen qabaa hal guri wada deganahay marka hore anaa la guursaday anoo la qabo dhowr bilood gabadhaan baaya aanu soo biirtay wallahi anaga la jecel mid saddexaad iyo mid afaraad inta inuu guursado marka see suurtagal ku noqotay waxa ognahay in dumarka ay nacib yihiin in naag kale la guursado idinkan waxa inoo sheegteen inaad tiin laba walaal oo hal nin wada qabo see ku dhacday macnaha idink ma ku heshiiyay waa kana soddonki shaqeynaysa ama shaqaalo ah xaaska la qabo isla markaana gurigeeda ka shaqeynaysa marka waxaan dhex joognaa halkan waa suuqa degmada Xamarweyne gaar ahaan qaybta lagu iibiyo dahabka waxa ay halkan ka soo doontay bal iyadana weydiin doonaa maadaama iyada noo wacatay isla markaana aan soo raacnay marka hore soo dhaw bal maanta markii waxaan keentay suuqa degmada Xamarweyne bal maxaa cusub wallahi waxa cusub waliga xaaska lagu qabo dahab u gaday waliga ma dhacda ka dhacday lacag aruurinaya oo lacagta biilka la isiyo waxa ugu soo iibiyay dahab ay maamada dahabka soo gaday dahabka cidisna hadaan socod ma usaab raba afaas baraas ugu dhig raba usaab kunta 6 baa garaanka harba di ila 30 gram amal 4 gram amal rabtamo 30 gram amal 30 gram rabtamo qeynay كل 680 waa kana 30 garaamo dahab hay waa kana ina ido كل 680 laga rabaa kiyar كل 680 laga rabaa waa kana hadii ay qaadi rabtay waa kana kan xarigi waay ka waa xarigi kan waa gacanti kan waa dhagihi
يا فراتي يقول يا كلا كسمه واكن ادابتي واكن حرق عنتي واتنا gacanti waa tinaa xerigi waa kinaa فراتي واكن faraantige كوري يا دغينا كاسا كل 680 laga rabaa marka nuunaha ay u shanqarey waxyaabaha qaar ee social media la keenayo shacabka uruna u maleynina reeraha waxyaabahaas oo kale kaftanka run u maleynayo ayaa uga digaya YouTube wax kasto la keenaha aamin ma kula tahay gabar intaasoo bilood lacag biilkeeda ka soo aruurinaysa naag lala qabo dahab ugu gadaysa ma kula tahay inay jirto maanta u maleynayo xataa haddii cabsi ka keentay ma u maleynayo naag waa lala gursadaa saa idin soo sheega laakiin lacaga ayuuto 10 bilood ugu soo jirtay $100 oo kale tusaale ahaan marka ayuuto bishii $100 gasho 10 bilood ayay kugu qaadanaysaa inaad $100 hesho marka macquul ma tahay oo aqliga saliimka ma ku siinaya inaad naag asaaga ah oo waliba lagula guursaday aad lacagti intaas aad soo tacbeysay soo aruurinayso ayuuto ugu jirtay biilkaaga ka ciriirinayso wax aadan rabin aad cunaysay ma kula tahay inaad naag faca dahab ugu gadaysid hadday runta sheekadan waa qof sixran iyo qof waalan haddii kale waa arrin loogu talagalay gabadha dahabka gadaysa oo meesha meemanka fadhiso waa la heshiiyaa inta kaamirada aan la shidin oo kala barnaamijkaas hadda macsanana la jir adna ha lagu barto bir dahabka laga soo gato labadan gabdhoodna wiilkay la jilayaan mar ayagoo guriga joogo ayaa lagu qabanayaa oo ay leedahay miiradiyaan ma arkin guriga u hagaajinaya cuntada u karinaya mar dahabkii doonaysa mar ayagoo hab isiinaya I love you love bell ma loo fahmeeshi yaal naag lala qabo jecelna jirto runta markaas ku sheegno waxyaabahaas oo kale marka views lagu raadiyaa dhalinyarada youtuberada wax kasta views ku raadiyaan wax kasta YouTube waa la keenay si ma arkino qofkii uu saameyn u yeesho channelkiisa uu magac u yeesho marka waxyaabahaas oo kale waxa dhihi lahaa bulshada yaa la wadaagin waxay saameyn ku yeelan karaan familo dhisan niman daaha gadaashiisa ka qaraabanay ay arintan oo kale u soo bareeri kara markay arkaan duucan baareynayna waxa wax laga qurux badan yahay in YouTube views looga raadiyo muuqaaladina waa idinla wadaagi doonaa 2 muuqaal waaye wasla arkeena waxyaabahaas oo kale marka views lagu raadiyaa dhalinyarada youtuberada wax kasta views ku raadiyaan wax kasta YouTube waa la keenay si ma arkino qofkii uu saameyn u yeesho channelkiisa uu magac u yeesho marka waxyaabahaas oo kale waxa dhihi lahaa bulshada yaa la wadaagin waxay saameyn ku yeelan karaan familo dhisan niman daaha gadaashiisa ka qaraabanay ay arintan oo kale u soo bareeri kara markay arkaan duucan baareynayna waxa wax laga qurux badan yahay in YouTube